wasiirka wasaaradda amniga qaranka ee dowladda Soomaaliya mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale taliyaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriisu iyo mas'uuliyiin kale ayaa kormeer qaatay in ka badan 10 saacadood ku tagay dhammaan baraha koontarool ee laga soo galo magaalada Muqdisho iyagoo u korgelayay sida ay ciidamada heegan ugu yihiin ilaalinta amniga iyo badbaadinta shacabka. Mas'uuliyiinta ayaa inta ay kormeerka ku jireen waxay ciidamada ammaanka ku dhiirigelinayeen in ay sii laabaan dadaalka lagu xaqiijinayo amniga caasimadda iyagoo kula dardaarmay in si naxariis leh ay ula dhaqmaan dadka rayidka ah inta ay ku jiraan gudashada waajibaadka amniga. goobaha ay kormeerka ku tageen waxaa ka mid ahaa xaafadda Waxar Cadde ee degmada Hiilwa halkaas oo ay kula kulmeen dadweyne aad u tiro badan oo ku shaaxeynayay mid ka mid ah goobaha ay bulshada isugu timaado iyagoo dadka shacabka ah ka wareysanayay xaaladda amni ee degmada iyo tabashooyinka ay qabaan. sidoo kale mas'uuliyiinta iyo saraakiisha ciidamada ayaa booqday xaafadda Daarusalaam ee degmada Yakshiid si ay ugu kuurgalaan horumarka dhinaca amniga iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada. kormeerka oo waqti badan qaatay ayaa xilli habeen ah wasiirka amniga qaranka duqa magaalada Muqdisho iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida waxay sidoo kale kormeer ku tageen qaybo badan oo ka mid ah duleedka magaalada iyagoo qiimeyn ku sameynayay sida ugu habboon ee loo xoojin karo xasilinta caasimadda. guud ahaan kormeer kadib ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre waxa uu kulan gaar ah la qaatay mas'uuliyiintan iyo saraakiisha iyagoo warbixin ka siiyay xaaladda amni ee magaalada Muqdisho iyo sida ay ciidamada ugu diyaarsan yihiin sugidda nabadgelyada. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax waxa uu warbaahinta qaranka ugu warbixiyay ujeedka kormeerkani. ku saabsanaa kormeerkan sidii aan ugu kurgeli lahayn xaaladda ciidamada jooga daafaha magaalada iyo gudahaba iyo sidii aan u dardargelin lahayn howlaha xasilinta magaalada ka socda. waxaan tagnay dhowr degmo laga bilaabo suuqa xoolaha Daarusalaam Kaxda guud ahaan degmooyin badan oo geesaha magaaladan marnay waxaan la kulannay dadka deegaanka oo aan ka wareysanay sida amniga iyo shacabka degmadaas degan ay ula shaqeeyaan hay'adaha amniga deegaanka. Waxar Cadde kula kulannay dad ka mid ah shacabka deegaanka degan. howlgalkan ama kormeerkan wuxuu ku saabsanaa sidii aan u dardargelin lahayn howlaha xasilinta magaalada ka socda. Nuur Saciid Taliil telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.